madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagarin oo weheliyayaan wasiiruhu kumid ay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed eelay iyo xaraga ku jari dhismo cusub terminalka garoonka diyaarado ee magaalada xudur oo dhismooyay la gabagabeeyay dhismo terminalkan cusub ee garoonka diyaarado magaalada xudur iyo qayb ku dadaalada dawladda iyo ka hirgeliyay adeegyada iyo baahanyihiin bulshada iyadoona dhismagun uu ka kooban yahay VIP-da oo bulshada ku sugayaan diyaarad oo si qurux badan la dhisay iyo qaybo kale ee xafiisyada lanka adeega bulshada iyo waliba qayb iyo kana sadayaan mas'uuliyiinta hadeerow degmada xudur ee xarun goboleedka gobolka Bakool munaasabad kooban oo xaraga lanku jaray dhismo terminalkan oo ku qabsoontay gudo garoonka diyaarado magaalada xudur may ku qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed sanatara wasiira la taliyaal saraakiil ciidamada madaxda maamulka gobolka Bakool kan degmada xudur odayaalka haweenka iyo marti sharaf kala madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagarin ya tilmaamay intii qayb ku ah dadaalada dawladda iyo ka biyaha tirgelinta adeegyada iyo baahanyihiin bulshada ka nool magaalada madaxda gobolka Bakool ee degmada xudur gudoomiyaha guddiga isxilqaan ee dhismo terminalkan ma uu sharaxay intii qayb iyo ku hayti dadaaladii iyo ka jaran sidii terminalkan lagu hirgelin lahay garoonka diyaarado magaalada xudur kaas oo hirgelintiisa iyo suuqaaladeen bulshada reer xudur iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed may fadaynayna ka gaabi ee terminalka dhaqaalaha oo unanta ka dhismi ma alraan way la ku bilaaw ilaa maalinta una tiroogna gobolka may galay bees oo una way baha haka total gareeni markii uu dajini 94,400 yar halweeyga la ku bilaaw ilaa waqti hadarkan yagalay beesadaasay may bani ku qoytay ee bishadu ee bulshada oo guddiga kooxay ilaa dad urbijooga nasiyaan ee dowlad goboleed koonfur galbeed kaalantii ku qaadatay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed eelay ayuu madaxweynahan ku mahadnagay sidoo xaragun ku jaray dhismo terminalkan bogaadin iyo hambaliyeen dari bulshada reer xudur si ay ku qayb qaadeen isxilqaankan laga hirgeli dhismo terminalka garoonka diyaarado ee magaalada xudur wala fadayay kaliya kadal madaxweynaha oo wasaaradda gaadiidka si in ka dhiibfad ama qoy farmaarta madaxweynaha amaanta leeyay madaxweynaha amaanta madaxweynaha ya amaanta le shaqada sidii booq san aragtan oo dareerta ama golaha wasiirada wale ama qolada kala wado tala dawladda laakiin ku wiilka qoytuwa wasiir shileys kala muddo aamiyo kor lan kala jiray shileys kala muddo aamiyo kor talada quruxda badan oo dib u dhiska dalka in la daadjiyo dawladnimada waa siyaasadda madaxweynaha tiirka midowga sida simba la dareertan ballanqaadada markii la dooraday madaxweynaha way ku mid ahaayeen inay dalkana la xoray siyaasadana la daadjiyo daadjinta siyaasadda macnaha jamee inay boog la qaadane waliba inay gobol walbiye deerta shaqada wasaaradda walbiye la qeynidii deertuwa sida hadda wasaaradda gaadiidka oo kala geeyay shaqadii ay qabsatay madaxweynaha ka maray terminalka wali baahnaa industry wasaaradda garsoorka iyo shaqada asaasan qabata wasaaradda maaliyadda hadda la shaqeeyay shaqada asaasan haysta wasaaradda inay heer degmo iyo heer gobol iyo deeran way dadajinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagarin oo munaasabada ku jeeday khudbad dhaniyo badan taabadaasi mayso tilmaamay muhiimadda isxilqaanka iyo inleta bulshada iyo dawladda may tan usu ka xusay intii qayb ku eta bulshada reer xudur si aan ku qayb qaadadahayaan horumarka iyo waliba nabadda degmada xudur ee gobolka Bakool mayso tilmaamay kan dowlad goboleedka koonfur galbeed hang intii dadaalo badan ka biyo doonaan sidii oo ka qabtir lahaayeen bulshada reer xudur baahiyo ku haysada dhiniyada adeegyada iyo baahanyiin muddo badan markaan inta ku soo noqonay oo qorshahanagu uu ahaa waxyaalaha ugu horeeyo muhiimadda aan saarayno degmada xudur inay airport dhisan hesho duruufo jira awgooda dhismihii airportka weli rajo weyn aan ka leenahay wuu imaan doonaa maalin walba oo marxaladaan sameynaynay waa xasuustaa maalinta ugu horreysoo nimid safarkii ka horreeyay waxaan dhagax dhignay migration waxa ilaahay mahadiisoo lagu guuleystay maanta inay degmada xudur aanan loo doonanaynin baasaboor baydhabo
oo inta looga goynayo dadka maalin walbaba aan nimaano ama aan maqannahayoo baahi deegaanka uu qabay yaan ku maqannahay sidii loo xallin lahaa noocay rabta ha noqoto adduunka hal maalin lama wada dhisin wax walbana hal maalin ma samaysmaan maalinbo tilaabo yaa la qaadaya laakiin waxaan aaminsanahay tilaabadii ugu muhiimsanayd yaa dhiman laakiin in tilaabooyin badan oo adeeg bulsho ah oo degmada Xudur u baahnayd inay dawladda qabatay kuwa kaloo dhimanna ay qaban doonto hadduu Ilaahay yidhaaho intaas kadib waxaan rabaa inaan aad u dhiirigeliyo guddiga isxilqaan ujeeddada isxilqaan aan u dhiirigelinayna waxaa waaye wuxuu sheegay guddoomiyihii guddiga airboortka in lagu dhisay 94,000 in lagu dhisay 94,000 7,000 waxaa bixiyey dadka isxilqaamaya inta kale waxaa bixisay dawladda waa percentage aad u weyn ninkii 80 iyo dhowr kun bixiyey 7,000 ma ahee 80 kale ka badanna waa bixin karaa waxa aan ka rabna kaliya waxaa waaye baahi loo qabay inay dadka wax ku darsadaan ma aha wax lacagtaas loo bixiyey in loo baahan yahay oo la waayey 7,000 sidaas darteed loogu daray ma aha waxa dadka bulshada wax looga qaaday isxilqaanka ay ugu dareen waxaa waaye dadka inay waxaan lahaashahooda la dareensiiyo inay ayaga leeyihiin magaala madaxda gobolka Bakool ee degmada Xudur muddo sanado ee bulshadii ay isticmaalaysa garoonku may terminal aan hayay jirdun oo damboyta taas oo yahay tito dhibaatiyo ka qaban dadka ku safaro magaaladu madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo ku go'an adeegga ku shacabka kanool gobolada Bay Bakool iyo Shabeellada Hoose ya hirgeli garoonku terminal J terminalku cusub geek madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed lafta garan xaragu ku jari qayb ku ay dadaalada dawladda iyo kibiyahayta sidii bulshada reer Xudur waxa qabtir lahay baahiyo iyo haysada terminalku yana qayb ku nagado doona adeegyada bulshada lanka gobolka garoonku diyaarado ee magaalada Xudur Faisal Maxamed Isaan TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed magaala madaxda gobolka Bakool degmada Xudur